الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أدبن ذي السلام يا ولا الله سومر إذا ميل كستو جوتان يسير بوان نودا ونسان مقعيقو إسماعيل حسن أرى حدي إتاي مركي كوغو الرئيسي وأدنا صوب وقنايسو فضلا سبسكرايب بطن كتابو لايك تنوانو مهم وحي كقيب قادتا إن أي ندير رجلسو هدبو هدي أتسفي عن واغلسي تايتلك وأن دريمي أنا دغلسو social media markaad joogto annaga Soomaali haddaan nahay wax walbo la promote gareeyo ama ba la buuniyo wax bay noqdaan marka videogan hadda aan reaction ka sameeynayo aan rabin inaan la wadaago asagoo kala sameeyay oo ka horeeyay oo aan uga hadlayay Captain Ayub wanaaga uu sameeyay iyo lacagtii uu kasoo helay tartankii TikTok inuu ku bixiyay dad walaalaheena oo Soomaaliyeed oo ku dhibaataysan dalka Soomaaliya hasa ahaatee maanta another level dadkii shalay aan ku haynay oo aan dhahaynay raggaan qabyaalad bay wadaan waxay proof gareeyeen inay yihiin dad quality leh runtii nin la yiraahdo Daahir Cali Sow aad wada ogtihiin inuu yahay nin iska dhib badan يعني لا ده بلال بوشاوي يعني لا ده شينا علي وحي مدينين إن أنكو أمانة وحونا كسنة سميان قف كهدي أنكو أمانة وحونا كسنة سمي اللو ضيان كرا أسجنا وصي ونكسنانا يا بلشدنا وحونا كسن أو أي سميان رجعنا كلا بيسميان لكن هدي أن فيرنا بس قرتك أي سميان ضدك أنت حب بس هدان فيرنا qofki de lama qaban karaayo asagana xumaantiisa uu sii soconaya marka waxa kaliya oo bulshadana ku dhiirigelin karaan waxay tahay inaan cidii wanaag sameeyso soo bandhigno oo shacabku soo bandhigno aan dadka la wadaagno inay yihiin dad wanaagsan arintaasna ay kalifto in ayagana si dhiirigeliso dadka kale walaalahoodna uga dayso marka waxaan leeyahay Daahir Cali Sow oo ah legend Soomaaliyeed kulli aniga cad baan la socdaa ninka odayga ah hadda Shiina Culey iyo Bilal Bushaawi raggaas horta Daahir Cali Sow wuxuu kamid ahaa raggii ka soo horjooday arrimaha qabiilka oo xilligii tartanka lagu jiray laakiin Shiina Culey iyo Bilal Bushaawi waxay baahayeen raggii bilaabay barnaamijkaas kadib markii lala hadlay oo arintan la weydiiyay oo Soomaalidu ay canaanatayna waxaba dib nooga soo baxday in ay raggan qorshe kala wateen iyadoo lagu beys garaynayo hadii aad maanta tiraahdo TikTok 5 دقيقة وترهدي يعني دي قفكي وحور ربع إنه قرش الله إمادة اللي قدها وضع مركي لله قبيله هوي إدارات با إليكم مدرنا هذه حد ليو أما با ترتميو ويراسل الشيء جاي almost اللي بعتهم كبدنا داونيس اللايفة لكن هدي أرنتاس أيضا سمين لهين ضد بدل مهل لهين مركا وعكم ده استراتيجية أما policy أما السياسة ده أي مركز يكون ربين العقد إنه يسوي هلان سي أي وعويان ضد كولا له ده الصومالي ده يكون تبع لسان مركا waxay sameeyeen saddexda nin ee idin la wadaagayo waxay lacag u geeyeen Dr. Xabeeb qala siiyo oo dad xanuunsan oo dhimir kala hayo sidaan idin la kala wadaagayno oo aan la wadaagi doono codadkooda runtii waxaan leeyahay Soomaaliyeed waxaan nahay dad walaalo ah social media ana maanta wuxuu noqday aaladda ugu weyn ee la isticmaali karo markii hore saxaafadda baranayna waxa la dhihi jiray saxaafadda waa awoodda afraad ee caalamka laakiin maanta waxaan dhihi karayaa social media which is part of the media inay tahay awoodda ugu weyn ee la isticmaali karayaa maanta waayo social media wixii la geliyo wax yar hadda gelisay caalamka qabsanayaan marka social media sida uu isticmaashid waayo telefoon yar baad haysataa telefoonkaada maanta hadii aad quraan ku dhageysatid hadii aad dad ku caawiso hadaa dad wax ku barto hadii Ilaahay ku madarnaade dhanka wanaagsan waad ka isticmaali kartaa hadii de dhanka xuno waad ka isticmaali karaysaa marka go'aanka waa mid adiga gacantaaga ku jiro hasa ahaatee waxaan ku dhiirigelinayaa ummadda Soomaalida ay meel walba iga daawanayso ee walaalaheena in aan isku dayno inta aan noolahay adduunkan وإن كوبان قف والبميش اللي سوجرو ميخانو لكن أنت نوشة اسكو ضي إناد وناقة كشقيسيت رجع successful كلا بهو إنه وشة يعني جاري هدف كبير ربين مركا وحوي دي سيد يقول هان وما حيقول
wuxuu ku leeyahay guushaydu waxay bilaabatay markaan bilaabay inaan ku fekero qof kale walaalkay noloshiisa seen ku bedeli karaa marka aan ku fekero bal hebel say noloshiisa ku bedeli karaa qof walaalkaa say noloshiisa ugu bedeli kartaa for better life sideed ugu bedeli kartaa wallahi ana been ku sheegay noloshaada bedelaysaa laakiin noloshaada haddii ka bilowdid aniga sidee ku bedeli karaa how am I going to change myself the simplest answer is that you change others as well markaad dadka kale ku fikirtay inaad bedesho noloshooda sida ragga hadda qaralaha siiya saddexda nin oo aan meesha ku xuseeya sameeyeen guusha lagu sheegay waa intaas waa guusha waa inaad dad kale noloshooda xumaydo xaalad aad ku jirto inaad nolol wanaagsan keentid ilaahay jalla wa ala wax walba gacanta ku hayo ilaahay wuu ku siinayaa wuxuu ku arkayaa dadaalka aad sameynaysid ilaahay jalla wa ala haddaad adiga garatay inaad qof kala caawisid asaga wuxuu garan weynaa inuu adiga ku caawiyo no marka guushu waa in la iscaawiyo guusha waa in ilaahay kuma darnaadee garbaha la isqabsado guusha waa in ilaahay kuma darnaadee aad caawiso qof oo kaa hooseeyo ee ilaahay kuma darnaad xaaladda ku adag tahay inaad caawiso way guusha kor u soo qaado oo aad madaxa korgeyso that is the real success in this life anyway haddii ay tahay markii kugu horeysay oo aad welina daawanayso oo aadna subscribe noo dhihin fadlan haddaad doonayso inaad channelkan mar kale kusoo laabato subscribe noo saar haddii aad jeclaatay fakirka iyo barnaamijka aan ka hadlayno like noo saar haddii aad doonayso fakir qurux badan inaan nala wadaagto commentiga nagu soo waxay haddaad doonayso asxaabtaada kale inay iyagana ka qayb qaataan fadlan walaal macaan maxaad sugaysaa share this beautiful video with your friends waxaan mar walba grateful idinku ahaan doonaa saboodka aadna sabood garayseen insha allah qof walba Soomaaliya waxaan ka rajeynayaa video wanaagsan inuu ku sameeyo contribution amaba qaab walba lagu taageerayo videoga inuu sameeyo sharing community like those things will help us so marka muhiimadda ugu weyn oo aan rabaa in idin wadaago videoga waxay tahay walaalaheen Soomaaliyeed saddexda nin Daahir Cali Sow followed by Shina followed by Bilal Bulshawi you guys you are great people and we love you and we are proud of you and inshallah sameeya oo ku dadaala inaad hawshan sii wadaan I love you so much